بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.
jidda anigoo xildhibaan ma jiro wax kale oo maadi ah wixii intaa ka duwan oo aad baraha bulshada ka aragtaan waa haraagii dhaqannimadii hore oo lagu baabi'iyo sharafta iyo karaamada iyo sumcadda mas-uuliyiinta qaranka iyo culamaadudiinka waxaan soo jeedinayaa in arrinkaas diiro oo aan u yeelano marxaladda dib u eegista saxaafadda aniguna kuma fiirnin adeegsiga baraha bulshada ee cusubka ay soo tirin doonaan fadlan walaalayaal waxay u tirina ee iiga tura kuwa iyaga ah waxaan xusuusinayaa qorahda rabbigeena oo yidhi alyawma naqtimu calaa afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun maalin baa jiri doonta oo afka la niibayo gacmahooda ay hadlayaan lugoodana ay raadikacayaan waxyaabaha ay ku baxayaan maalintaas anoo balanaan leeyahay mudanayaal guddoomiyenimada ka hor waxaan ahay soomaali allahu subxaanahu watacaala wuxuu igu manaysay nicmooyin badan aan soo koobi karin waa alxamdulilaahi mahadda asagaale subxaanahu watacaala wuxuu kaloo igu manaysay oo aan nasiib weyn oo aan nasiib u ii siiyey inuu ii xilqaamay inaan muddo 6 sano ku dhow hogaamiyey xafiiskan sare oo ah hoyga dowladnimada iyo hadda dowladda laga unkiyo ahna halka xeydhaynta u ah kuna dhowraarsan tahay gobonimada iyo siyaadada qaranka laguna ilaaliyo taasna waa mahad allah subxaanahu watacaala alxamdulilah haddana subxaanahu watacaala wuxuu qadaray inaan mar kale ugu manaysto nicmadan weyn oo ah inaan maanta sidka xilka iyo culeyskii uu lahaa iga dejiyo ayadoo xubnihii golaha shacbiga oo furansan oo midaysan oo aan kala jabneen taana waa mahad alle alxamdulilah waxaa kaloo sharafii ah aan kuna faqaya aan ku faanaya inaan soomaali ahay kana mid ahay xildhibaano soomaalinimo iyo soomaaliyad qabta aan hadalka shacbiga oo ah codkii shacbiga ku dhex joogo kala shaqeeyo horumarinta dalka iyo baraaraha shacbiga iyo dib u fufinta iyo dib u aasida dowladnimada soomaaliyeed si kastoo aan u kala la duwanahay mar walba aan u heelanaan una weerduuban midnimada ummadeena difaaca diinteena dalkeena iyo dastuurkeena iyo daryeelka iyo baraaraha dalkeena ilaa maanta waxaan dowladda iyo dadweynaha soomaaliyeed u soo adeegay 56 sano khibrad ahaan waxaan idin sheegayaa dunta qofka ama jinsiga soomaaliyeed oo allah subxaanahu watacaala ku abuuray wax la heli karo ma aha waa dun wanaagsan oo wax lamid ah caalamka fiismi shacbiga soomaaliyeedna waa shacbiga ugu wanaagsan oo jecel xukun dowladeed nidaamsan si fududna arrimahooda loo maamuli karo wuxuuse u baahan yahay cadaalad waxaan guud ahaan u mahadinayaa dhammaan xildhibaanada dhan walba ay mooshinka ama soo jeedinta uga soo jeedeen kuna ammaanan yihiin adeegsiga
ilaaliyo shaqaalaha shaqaalayaasha ah ee aan soo gelinay shaqadii ugu xoog leh shaqa bari xoog leh anigoo si mug leh ugu mahadcelinayo sida sharafta leh ay igu soo daba adeegeen golaheena sagaalaad iyo oo igu soo isugu jira kuwa fayid ah kuwa amniga ah ay ku soo kuwa amniga ah ay ku soo nagwaayeen sanadii la soo dhaafay oo mudan in la xusuusto sida dhamme burxan oo ahaa geesigii isku gudbay gaarigii lala doodayay baarlamaanka lagu tan iyo intii ay bilaabatay mashkilada mooshinkan anigu iyo tiro badan oo xildhibaano ah ma codsanin wax kale aan ka ahayn laba arrimood oo kala ahaa in sameynta sharciga la ilaaliyo oo codayn dastuurka iyo xeersaarka waafaqsan lagu xaliyo ama wadahadal iyo xal siyaasadeed lagu soo afjaro intaas waxaa dheeraa inaan si buuxa u wada ogolaanay tala kasta oo la soo jeediyey oo labadaas qodob ku dhow waxaase loo dhigay bilaawday saas daraadeed inaan maanta mansabka guddoomiyaha ka istiqaabada dhowr arrimood baa u soo lahaa oo aan loo baahnayn inaan halkan kusoo wada saxno waxaase ugu muhiimsanaa anigoo garwaaqsaday waxaan doorbiday inaan ka mid noqdo xallinta asmada siyaasadeed ee ka aloosantay mooshinkan oo aan qayb ka noqonin carqaladaynta halgaarista mushkiladda waxaan garwaaqsaday haddii mushkiladani aan dhaqso loo soo afjarin waxaa ii muuqday saansaamo usii tarmi karay ama sababi karay burburka golaha shacabka ama ugu yaraan waxyeelo weyn u geysan karay dadqabka iyo haybadda golaha shacabka waxaan doorbiday inaan u istaago jiritaanka iyo dadqabka golaha iyo midnimada golaha shacabka haddii aan goor hore usha dhaxda laga qaban waxaa iisii muuqatay in golahu qarka u saarnaa inuu qaato go-aan garabqabsan dastuurka ama reerhoosaadka taasoo noqon lahayd bar madow oo taariikhda dalkeena weligeed ka jirtay saa daraadeed waxaan doorbiday inaan golaheena lagu eedeynin kana badbaadino inuu baalmaro sameynta sharciga ama ku kaco wax baalmarsan dhaqan wanaagga dimuqraadiyadeed ee baarlamaaniga markii aan arkay wax u eg
qaaday inaan ka tego mansabka guddoonka golaha shacabka ayagan waxaan leeyahay aniga bani aadam ahaan sidan ayaan daafi waayey ee sidii oo rabaa sidaad ka wada warqabtaan 28 agoosto 2012 markii la ii doortay xilka guddoomiyaha baarlamaanka sagaalaad ma jirin baarlamaanka jeedaan ama wax nagala wareegay maadaama sanooyinka horba khilaaf u kala tirnay oo dumay dab ahaantii baarlamaanka sagaalaad wuxuu shaqada baarlamaanka sida ka bilaabay meel eber ah oo abuur hor leh waxaan kaloo dhaxalnay dal ku jiray marxalad kumeel gaar ah una baahnaa in laga bixiyo kumeel gaarnimada loona dhiso dowlad hor ah oo leh oo ku hagoogan gobonimo madax bannaan mudanayaal shaqada baarlamaanka sagaalaad uu howlgalay ma ahayn shaqo fudud wuxuu ahaa baarlamaan looga baahnaa inuu horta asaga dhiso islamarkaana damaanad qaado dhisidda laamaha dowladda iyo hay-adaha kale ee kaabayaasha dowladda xildhibaano iyo muwaadiniin badan baa sabab iyo dabarxadeed ugu soo midmiday gulaha iyo nidaamka maanta lagu shaqaynayo iyo hay-adaha dowladeed ee noo dhisan xildhibaano badan iyo howlwadeena golaha shacabka ka tirsan baa loo dilay kuwa badanna loo dhaawacay mahad allaale ee waxaa noo suurtagelay inaan dalka ka soo guurino kana soo bixino marxaladii kumeel gaarka ahayd oo loo gudbay dowlad ku dhisan lehna nidaam dastuuri ah waxaa la unkay dhaqan dimuqraadiyeed daah furan dadweynuhu mahadiyey una suurtageliyey in lagu soo maamulo 3 madaxweyne si daah furan dagaal la-aan xilka loogu kala wareejiyey sidoo kale markii nala doortay sanadkii 2012 waxaan joojinay inaan shilin dambe khasnada dhexe laga bixin karin miisaaniyad la-aan oo golaha shacbiga u surfasay ilaa hadda waxaa lasoo ansixiyey 8 miisaaniyadood iyo xisaabkii sanadeed oo ah ilaa 2016 afar ra-iisul wasaare xukuumadood oo federaal ah oo dood la-aan xilka loogu kala wareejiyeyna waxa ay u suurta gashay nidaamka dimuqraadiyadeed oo dalka guddiyo madax bannaan oo dastuurka farmay ayaa dhismay kuwa dhimanna loo dejiyey shuruucdii aasaasiga u ahaa oo ay u dhiman yihiin keliya in xubnihii ama garsoorayaashii ka howlgeli lahaa loo soo magacaabo waxaa noo suurtagalay in khilaaf siyaasadeed kastoo ka aloosma dalka lagu xalliyo baarlamaanka iyo dalka gudihiisa lagana ilaaliyo faragelin shisheeye taas oo kalsooni badan gelisay shacbiga halkii dhaqanku ahaa in khilaaf kasta xalkiisa loo aado dalka dibadda waxaa noo suurtagalay in la dhiso dowlado goboleedyo gundhig u ah federaaleynta dalka iyo dhisidda dowlad dhexe oo federaal rasmi ah waxaa noo suurtagalay markii ugu horreysay burburkii dowladda dhexe ka bacdi baarlamaankii sagaalaad oo weli fadhiya in lasoo dhiso baarlamaankii tobnaad oo 2 aqal ah xilkan lagu wareejiyo taasoo aan horey u jirin baarlamaanadii midnaadka ka bacdi waxaan idinka tegayaa hay-ad baarlamaani ah oo ay u dhisan yihiin dhammaan laamihii sida sharci dejinta matalaadda shacbiga guddiyada korjoogteynta iyo laantiisa maamulka oo ay ku howlgalayaan howlwadeennadiisu yihiin kuwa karti iyo hufnaan u leh una badan jaamiciyiin tababaran waxaan idinka tegayaa baarlamaan xiriir shaqo iyo iskaashiga leh dhammaan golayaasha heer guddiga dowlad goboleedyada Soomaaliya waxaan idinka tegayaa baarlamaan xiriir shaqo iyo iskaashiga leh dhammaan baarlamaanada adduunka waxaan idinka tegayaa baarlamaan heshiisyo is-afgarad iyo iskaashiga leh baarlamaanada dowladaha xiriirka walaaltinimada gaarka aan ugu leenahay ka taga darteed waxaan idinka tegayaa baarlamaan leh guddiyo saaxiibtinimo gaar ah la leh baarlamaanada dowladaha naga dhexeeya iskaashi siyaasadeed goboleed carbeed afrikaaneed iyo khibrad wadaag ee khibrad isqaasiga baarlamaaniga waxaan idinka tegayaa baarlamaan leh xusuusteen hay-adeed ama institutional memory loo yaqaano oo howlihii uu soo qabtay ku kaysan yihiin dukumentiyo qoran
dulqaad leh lana heli karo xildhibaan walba wixii maalin uu ka yidhi golaha waxaan idinka tegayaa barlamaan baraarugsan oo karti u leh oo karti iyo aragti wadannimo leh oo soo shirgudoomiyey qadiyado badan qadiyado badan oo qarameed oo culus oo masiiri ahaa dalka lasoo gudboonaaday ay ka mid yihiin arrimihii soodimaha badda waxaan idinka tegayaa barlamaan shacbigu u dhego nugul markii uu ka darqado qadiyad uu la welwelo golaha xalu helidiisa usoo qaylanaa waxaan idinka tegayaa barlamaan ay u diyaar yihiin mashaariic dhismo cusub ee xarunta golaha ummadda oo hoy ku noqon doona barlamaanka federaalka soomaaliyeed labadiisii cadaan iyo xarun kale oo kumeel gaar ah oo u noqon doonta xarun kumeel gaar ah golaha shacbiga oo iskii shaqeeyo laguna dhisi doono bilahdiisa kuna kixi doona malaayiin doolar lana filayo in dhismahooda ay dhammaadaan muddo 2 sano soo socota gudahood dhismooyinkan oo bilicda muqdisho wax weyn ku kordhin doona barlamaanka kordhinaad ee jamhuuriyadda lagu si buuxda u dhexi doono waxaan idinka tegayaa barlamaan shacbiga soomaaliyeed ku faani karo inkasta oo hawlihiisa iyo maamulkiisa ay barlamaanada dowladaha carabta iyo afrikaanka la tarsama qaarkoodna ayba majafsadaan anigoo aada u dhiirigelinaya iskaashiga u dhexeeya laamaha waaweyn ee dowladda haddana waxaa laga maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo kala madax banaanida hay-adaha dowladda iyo kala socnaanta gudaha waayo haddii isku xadgudubka hay-adaha dowladda oo aan la xakamayn ama indhaha laga qabsado waxaa hubaal ah inaan u horseedayno nidaam kelitiriye iyo takifad awoodeed oo aan cidda korjoogteen karin saa daraaddeed waxaa iga dardaar ah inaad aad u ilaalisaan in madax banaanida baarlamaanka lagu soo xadgudbin waxaa kaloo iga dardaaran ah in casharada aan maalmahan ka baranay aada loo diiwaangeliyo si looga faa'iidaysto oo aan heer hoosaadkeena ku naxlijininno wixii doosin aan ku samayno si kastoo xaajadu xaajo culusna loo horkeeno ay tahay marna inaan ku degdegin maalmarinta axkaamta dastuurka iyo hoosaadka iyo shuruucda kale ee dalka haddii ay nala soo gudboonaadaan arrimo masiiri ah xal nooga baahan sida mashkiladda hadda aan ka soo baxnay ha lagu dadaalo horta in si fiican loo hinjiyo si qotadeeda loo hubsado nuxurka khilaafka ama ku kala wanaagka ka bacdina loo hago in heshiis siyaasadeed lagu xaliyo iyadoo marna aan la ilaaliyo in allahu subxaanahu watacaala uu jecel yahay in dadka dhexdiisii maslaxo samiyo haddii arrin aad isku ka ciqaabtaan ilbaxnimada ma aha in koox loo kala qoqoobnaado arrintaas waa inaan ka yeelkubaxnaa waxaa habboon in laysu socdo la kulmo laysa shaacabo si xigfadaysana la isugu dhacidaamiyaadsado laysu qalbiyo taasi waxay fududaynaysaa soo dhaweynaysaa xaajifalka waxay soo dhaweynaysaa xallinta mashkalada ugu dambayntii mudana gudoomiye iyo mudanayaal waxaan balan qaadayaa inaan meel ugu socnin oo aan idinla joogayo anigoo hadda aan idinsoo fiican banaanaaday aan dadaal hor leh aan dhowr jeer jibaari doono gudashada xilkeyga xildhibaannimo waxaan balan qaadayaa inaan si buuxda ula shaqayn doono gudoomiyaha cusub aan dooran doono si tayada golaheena inuu kor u kaco mooyaane in marka usan hoos uga soo jeedo aan wada ballan qaadno in cudkun kasta aan halkan ku reebno aan isu caloolfiyoobaano aan iscafino oo aan u kuntixirino u adeegida shacbiga iyo howlaha mundiyaala idinkuna ii ballan qaada ilaa iyo inta aan ka ilaabay dowladnimada maalmaha hore inaad
si waafaqsan dhaqan dowladeedka laga bilaabo maanta waa tahay rasmi ahaan dhismaha gudoomiyaha aanu howlgalno Allah